mas-uuliyiinta kala duwan ee ururka ka oo isugu jira xildhibaano wasiiro iyo xubnaha kala duwan ee heer degmo Garowe heer gobol Nugaal iyo heer golaha dhexe dhammaantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha ururka ka ee gobolka Nugaal oo barnaamijkan qabanqaabadiisa lahaa isaga iyo xubnihiisa kala shaqeeyay ee fulinta iyo cidii gacan ka siisay waxay astaan u tahay kulankan u diyaar garowga doorashooyinka nagu soo fool leh oo ay ka mid tahay magaalada Tangarowe waxaa runtii lagu jiray hayaan muddo dheer soo qaatay oo ulajeedadiisu ahayd in talada dadka loo soo dhaweeyo abwaaradii halka ka hadashay ee gabaday ee xarago ayaa gabageedii laba kelmadood ku jireen markay fasiraysa dimuqraadiyaddu waa maamul daadejin iyo isla xisaabtan bay tiri intaan u socono waa intaas horta maxaa yeelay maamulkeennu marxaladihii la soo dhaafay duruufihii jira awgeed wuu urursanaa isla xisaabtankeennuna mar hadduu urursan yahay meeshii la rabay ma gaarsiisnayn waxaan rabnaa waagii baryaba inaan hore uga sii soconno meeshii aan joognay bini aadamku hadduu korriimada ka joogsado dee wuu hagaasaa ama wuu dhintaa bulshana qof waa dhintaa laakiin bulsho inay dhimato ilaa tii ilaahay uu noo sheegay oo dhulkan la rogayo oo qiyaamihii soo baxay waa wax kale laakiin inta ka dambaysa dhulkan mar walba dad buu lahaanayaa horey wuuna u soconaya waxa maanta aan harsanayno waa taariikh fog iyo shaqo fara badan oo muddo dheer awowyaasha inay soo geliyeen baan maanta joognaa deegaanada dalku waxay hadda u kala fiican yihiin sidii dadkii hadda markaa joogay ay dhaxal uga tageen dhaxal awoowe oo qurux badan oo ku dhisan is-ixtiraam kala dambayn nabad jacayl dowladnimo jacayl ayaynu la kulannay waxaana laga rabaa inaan ka tagno dhaxal ubadkeennu ay kula noolaan karaan dunida casriga ee sii horumaraysa ee mariikha tagtay ee xidigaha aadaysa oo satellite-ka iyo ilbaxnimada aad maanta arkaysaan ee maanta halkaan aan joogno meel walba lagala socdo taasaan rabnaa mid la mid ah inaan dhaxal uga tagno taasina kuma imaan karto haddaan maamulka la furfurin haddaan cuquusha faraha badan ee waxbaratay aan talada laga qayb gelin taladii waagii horeeto waxay ahaayeen waa dad miyi waxaa talin jiray uun dadka siday u kala caqli badan yihiin laakiin aqoon kala duwan ma lahayn hal aqoon bay lahaayeen aqoontaa miyiga un bay lahaayeen laakiin kartidooda iyo caqliga hibada uu siiyey laakiin maanta marka la rabo in la taliyo waxaa la rabaa in la helo dad kala duwan oo kala takhasus duwan ciidamada in gaar looga taliyo u baahan tahay dhismaha iyo horumarka iyo jidadka gaar looga taliyo u baahan tahay caafimaadka iyo arrimaha kale gaar looga taliyo nolosha casriga ee maanta adduunka ku tallaabsaday waa ka duwan tahay midii aan horay ugu noolaan jirnay nidaamkeena dawliga ah wuxuu salka ku hayaa waa nidaam dawliya oo waxaa la yidhaahdo nidaamka dawliga ee casriga ah ayaan qayb ka nahay nidaamka dimuqraadigana waa midka ugu fiican ee maanta la isku raacsan yahay ee dadku ka soo dhexbixi karaan hoggaanka saxda ee ummaddan raba inuu u shaqeeyo inteenan halka joogtay siyaasiyiinta ah waxaan doorannay inaan dadkeena u shaqeyno marka siyaasadda laga hadlayo fasir kale ay leedahay male waa inaa ummaddaada u shaqayso oo xafiisyada caamka ah ka shaqayso intii rabtay inay danahooda ka shaqaystaan ama loo shaqeeyo waa inta maqan oo mar walba la rabo in loo adeego inta yar la rabo inay mar walba usoo jeedo nidaamkan horumarka ah oo dowladnimada ah aan hadda wadno dadka ka shaqaynaya kama duwan oo kuwa difaacaya ee cadowga ka difaacaya ee buuraha u saaran ee maalin walba har iyo habeen usoo jeeda ayaynu la midnahay waxaan ka shaqaynayna waa horumarka iyo nabadda iyo badqabka dadka maanta halka waxaan ku joognaa kah mas-uuliyad gaaraa saaran marka waxay nasiib u heshay inay noqoto ururkii xukuumadda xilligan isbeddelka samaynaysa ay dadkeedu ka tirsanaayeen marka mas-uuliyadda ururada kale la saarnayn baana saaran maxay tahay inaan mar walba hormuud noqonno
inaan annagu horseed u noqonno inaan annagu mar walba aan riixno mashruucan oo dastuuriga ah oo waajibka nagu ah inaan ka shaqeyno dabcan ku celcelintiisu mararka qaarkood waxay u ogaanaysaa inay dadku diyaar u ahayn laakiin sidaa ma aha mashruucan waa dastuuri waa xaq dastuuriya wuxuu u qabsoobi waayey duruufihii lagu jiray ayaa ahmiyadda iyo hortabintu waxyaabo kale lahaay maanta maalin ay ka habboon tahay marka ma jirto marka waxaan rajaynayaa ururka kaah oo hormuud uu u yahay gobolka nugaal oo caasimaddii in ay iftiinkan magaceennu waa kaah kaahaas waxaan rabnaa inuu puntland maahane soomaaliya geeska africa inuu ka ifaan rabnaa dilaha wax walba maalin bay bilowdaan aniga shaki igama jiro in mashruucan uu hirgelayo kahna guulaysanayso waxaan rabnaa inaan marka horeeto annagu ay dhab naga noqoto waxaan rabna inaan ka shaqeyno markaasaa hadalkeennu miisaan yeelanaya saameynna dadka ku yeelanaya waxaan ku faraxsanahay ilaa maanta iyo habeenadii dhaweyd oon la kulmaayay xubnaha ururka kaah taalantiga iyo siday daacadda ugu yihiin gabdho iyo wiilalba oo naftooda iyo wakhtigooda ugu horaayaan oo ay ka muuqato tiraabtooda iyo tixdooda heerka ay ka taagan tahay inay bulshadooda ay wanaag gaarsiiyaan oo geedi caalal ay u raraan waxa weeye waa wax runtii qofkii damiir leh uu ku dhiiran doono ididiirana gelinaysa wixii tegey waa tegeen wax tege tiigsimaad malaa la yidhi waxaan ka shaqaynayna waa mustaqbal iyo waxa maanta jooga waxa aan u shaqaynaynana waxa weeye sidee gurigeenna u quruxsanna ma wax kalea ma weheliyaan war talada aan wadaagno maceebba ninka diidan muxuu diidan yahay ani ma garan karo runtii waxaa aniga iga go-an waxaa dad iigu dhow ninkii tala wadaag ila ogol waxaa dad iigu dhow ninka doonaya dadkan inay horumar gaaraan hadday dadkaan rabin inay horumar gaaraan meeshaan ma fadhiyeen wakhtigii aan ogaa 3 degmo doorashadii ka dhacday dadkii iyo dumaradii iyo odayaashii iyo dadkaan ogaa ee wakhtiga geliyey ma waxaa la odhan karaa doorasho ma rabin taariikhdu weligeedii allaheed ilaa iyo nebigii laga soo bilaabo dad mar walba warxmatashiilo wax diidda waa la sheegi jiray soo ma miyaa la waynaya taas marna la waayi maayo qof laba aflaana lama weynayo laakiin mar walba xaqaa guulaysta ogaada taariikhda waxaa lagu hayaa dadka xaqa ka shaqeeyaa guulaysta daacad bay naga tahay dadkaan dan aan ka leenahay oo gaara ma jirto war dadkaan tala ha wadaagaan maxay tahay dantay kaah ka yeelan karto ma dan gaara ka yeelan kartaa xukunkay rabtaa inay ku joogtay leeyihiin oo runteen kaah inaan xukunka sii joognaan rabnaa soo inaan ku soo baxno ma rabno yaa been inaan ka shaqeyno ma rabno laakiin kaah ummadda waxay u wadaa inay kaah gaarsiiso oo iftiini barwaaqo gaarsiiso waxaanse diyaar u nahay tartan qof iyo cod ah xataa haddii tartanka ilaahay ma saabixi aan ku guulaysan weyno ururka kaah waan ka sii shaqeynana kan ku xigaan sii tartamayna nidaamka aan raadinayna waa kaas horta ururka kaah waxaan rabnaa inuu 100 sano jiro annaga maanta waa joognaa jiilka dambe inay sii jiraan aan rabnaa mashruucaani waxa weeye waa mashruuc kii hore 24 baa lagu sheegaa soo maaha mid aan qorsho fiicnayn hadduuba 24 gaaray midka dadka dhan wada leeyihin intee gaaraya ma 100 sano ka yaraan karaa wixii dambe oo 100 sano ka dambeeya haddii casriyo kale soo baxaan dadkeeday u taallaa annagu hadda kama sii talin karno laakiin tan aan u jeednaa soo maaha tan waxaan rabnaa marka dhidibba adag inaan u istaagno dhallinyarada iyo haweenka waxaan kula dardaarmayaa dabcan xafladdan iyaga gaar u leh bulshadeenna 80% haddaysan ka badnayn 90 oo haweenka cimri kasta ay joogaan lagu daro oo dhallinyaradooda iyo waayeelkooda lagu daro 90% bulshada waa iyaga haddaysan ka badnayn ma been baan sheegaynaa dhallinyarada dadaa waxay u yaqaanaan wiilasha 20 jirada annaga ruuxaddeen dhallinyaradan ku jirna marka intaa la isku daro dee dalku waa dhalinyaro soo maaha dalkanna dadkaana iskale dhaxalkiisa
haddii dhallinyarada fursad la siiyo oo si sax ah ay howl u galaan waxay awood u leeyihiin inay sharafta iyo karaamada iyo mustaqbalka Soomaaliya ay kor u qaadaan waxaa daliil u ah maalmo dhaweyd waxaa ka socday magaalada Addis Ababa tartanka kubadda cagta ee dhalinyarada 17 jirkaas oo ah soo taariikh fiican ma aysan ka tagin soo koobkii ma soo qaadin waxaan halka uga dhawaaqayaa magac dawladeed ku hadli maayo ururka ka wuxuu martiqaad u fidinayaa dhalinyaradii 17 jirada ah ee koobka qaaday waxaan ku soo dhaweynaynaa Puntland ururka ka wuxuu ballan u qaadayaa inuu soo dhaweeyo oo uu ku damaashaadiyo quruxda iyo horumarka Puntland ay leedahay mas'uuliyadda ay kharash ku baxay oo dhanna ururka ka ba qaadaya arrintaas oo diyaar garoobay waxaan rabaa dhalinyarada reer Puntland ee ururka ka in ay u istaagaan horumarka dadkooda iyo dalkooda inay ka shaqeeyaan fursadda maanta aan haysano waa fursad qaali ah waa fursad muddo badan aan dhowreynay waa fursad mar walba laga shaqeyn jiray aniga waxaa ballan iga ah arrinta dimuqraadiyadda iyo ururka ka haba waqtiga inta badan inaan u geliyo maxaa yeelay waxaan arkaa dhaxalkii ubadka iyo mustaqbalkaan u jeedaa ninka wax kale ka shaqeyn jiray waxaan u baahannahay inuu fahmo ururka ka wuxuu doonayo ururka ka dan gaara ma rabo wuxuu rabaa dan caana iyo talo la wadaago rabaa danta caamka iyo talada la rabo in la wadaago waxaan oran karaa qofka diidan uusan fahamsanayn kaliya annaga waxaan laga rabaa inaan fahamsiino hadduu shaki jiro shakiga waa ka saareen waxaase rabaa inaan dhalinyarada u sheego mar walba waxaa nasiib darro ah ninka xataa fahamsan oo raba inuu wax khaldo cidda wax ku khaldaayo dhalinyaro wey marka dhalinyaro way maanta horta jaanis haysataan gabdhaha iyo dhalinyarada waxaan rajaynayaa intii bala kala caadifadooda ka faa'iideysan lahayd xubnaha ururka ka inay waqti badan geliyaan dhalinyarada sidii u jeehin lahaayeen waxaan halka baaq uga dirayaa ururada siyaasiga ah ee reer Puntland shaqadii oo leh doorashada waa bilaabatay hadhow yaan la is eedayn shaqadiina qabsada qolo walba waxa la rabaa ololaheeda shaqo inay qabsato annaga ololaheena waa wadaynaa meel walba 9 gobol iyo 37 degmo waa ka bilaabeynaa haddii ilaahay dadku inuu isku soo baxo wada hadlo kharash bay u baahan tahay maalin walba wixii la ka hadlaya fiiri hadda wax ay u baahan kharashka la sheegay la yaabana inaan isu nimaano hadalno ma dib bay nagu haysataa meediina dhalinyarada iyaga ka qayb qaadana intii la soo ka matiin duubaysa hadda kharashaydan ugu baahna adduunkana waa na maqlaaya soo saas maaha wacyi gelin way wax la rabee wacyi gelinta yeynan ka dhigin haddii ururadu naga noqdaan sidii hay-adihii loo fakari jiray horta annaga hore uma soconayno waxaa la rabaa ruuxda ah in tadawuc iyo waqti la geliyo inay waxa kan masiirkeenni wey soo maaha hawshaas aan gelino wixii aan iska ururino ayaan ku horumarinaynaa ururada sidaa maaha dowladdan waxay diyaar u tahay sidaad ogtihiin si siman ayay ururadu wax ku tabarucday maxaa yeelay ma aha isu soo baxyada keliya kharash ku socda ururada waxaa ku socda xafiisyo waxaa ku socda howlwadayno joogto ah kharashaad kalaa jira inta dadku ka baranayaan inay tabarucooda joogto u bixiyaan intiina halka joogta ururka ka tirsan lacag kala ha bixin bishii hal bil ka mid ah intaa shaaha ku cabtaan kaliya ururka sanadiisa ku shubo waa hal maalin kaliya ninkii biibitooyinka caadiga ka cabana waxaan u malaynayaa laakiin Montessori ku wataga waxa la yiri $3 iyo way soo maaha lacag naga badan way inta dawladda u shaqeysa iyo shirkadaha gaarka ah qofkii hadduu bishii $10 bixiyo lacag fara badan baynu helaynaa waxaan rabnaa xubnaha ururkana inaan badino soo galaya tabaruca inaan xoojino isla xisaabtanku inuu anaga naga bilowdaa rabaa haddii isla xisaabtanku naga bilowdo khasnadeena waxa soo gala in la sheego inay bayaan noqoto habka doorashadeena iyo madaxdeena ruuxadeeda ayaantii hore degdeg baan ku galnay dib baan u fiirinaynaa dhalinyaradana waa u badinaynaa iyo haweenka fursad baan siinaynaa ay isku hogaamiyaan dalkana ku hogaamiyaan waxay ila tahay ka
waa saaxiibka dhow ee dhallinyarada iyo cid walba oo dareemaysa inay fursad weyse fursaddiinni maanta waatan malaaq fursad baa haysataan waana la soo tijaabiyaa hadal maaha adiga waxaad tidhi madaxda ma arki jira maanta dhabarkaygaa fadhide waa fursad weyn wey birrina dhinacaygaa fadhin doontaa isku meelaan ka codayn doonaa dhinacaygaa fadhin doontaa marka waxaan rabnaa barnaamijkan danteennaa ku jirta horumarkeennaa ku jira ururka kaah waxaan u rajaynayaa guul iyo taariikh aan duugoobin ilaahay idankiisa taariikhda ururka kaah inaysan duugoobin baan rabaa dhallinyarada iyo gabdhaha daacadda u ah horumarka dadkooda ee ururka kaah wakhtiga badan geliya si gaaraan u ammaanaya waan u hambalyaynaya waxaan rabaa inaan halka ka xuso gabdhihii degmada eyl iyo ufayn iyo qardho iyo dadkii xubnaha golaha dhexe ka tirsanaa ee gurmudka ugu tegay shaqadii quruxda badneed soo qaban iyo gabdhaha isxilqaamay iyagoo degmooyinkooda weli la gaaray shaqada ka bilaabay sida xaawo iyo suhayr iyo oo hadda waa horeba diyaariyey in maaragtay buurtile iyo bursaalaxyo ay diyaar yihiin waa hubaa dangaroyo iyo jiriiban iyo maaragtay kulli inay diyaar yihiin iyaguna iyo xinqaloolna halkaa laga sheegay marka mashruucan waa gaari weyn waa tareen weyn oo hadda ninkii hor istaaga isagunbaa halis ku jira jidgooyooyin waa iska dhacayaan laakiin ninkii tareen dul istaaga hor istaaga muxuu qabsanaya isagaa ku wareeraya waxaan rajaynaynaa kani waa dhaqaaqay meeluu ka noqdo ma joogo dadkiisaana wata ma cid kalaa wada horta yaa soo dadka reer puntland maaha ma puntland baa puntland cidi ka xigtaa waxaan rajaynayaa mashruucan waa mashruuc dastuuriya hay-adaha dowladda oo dhan baa ansixiyey dastuurku ku yaallaa xeerar ku shaqaynayo o dhan dowladdaa ansixisay golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanku maray meel walbay mareen ninkii dood qaba dooduhu waa noo furnaan doonaan ninkii tartan qaba saaxada lagu tartamayo way noo furnaan doontaa ninkii wax kala watana sharciga iyo dowladdu way u jeedaa ma nin sharciga ka weyn baa jira halays doorto ma sharci daraa oo ninka dhahaya doorasho ma rabna muxuu ka hadlay marka ya marka hadalkaas waxay u baahan tahay anuu hadda banaanka usoo baxo fagaarayaashan oo ka hadla ninkii war haya waa wada doodeyna waxba mushkila maan anuu guddoomiyaha ururka ka ahaa ciddii wax kale ka duwan wadata aan wada hadalno bulshada markhaanti noo ah iyagaana codka weydiisanayna soo maaha waxaan idiin rajaynaynaa oo runtii aan u rajaynayaa dhallinyarada ururka inay muujiso awooddooda iyo rabidooda haddii aad maqli jirteen madaxweynaha dhowr inaad luuq la gasho wax u sheeg sheegtay hadda bannaankaan usoo baxay ilaa maanta iyo shalay soo meel walba lama joogin yaa waxaa ii sheegtaan aan ku shaqayn doonaa ballantaasa war wixii aan soo arkay idinkuna ha marine isxareeya nidaamkii aan halka ku imid waxaan u dan lahaa inaan kan ku gaaro laakiin kii aan ogaa cidi kuma noqon karto ciddii tale iga dambaysa oo rabta dadka inay u shaqaysana waxaan u farayaa kaas mid ka duwan oo ah doorashada wakti ha iska gelin haddaaba rabto dadka inaa u shaqaysid maxaa yeelay qof sameeyo sacrifice waa loo baahnaa si looga gudbo laakiin nidaam lagu noqnoqon karo meel dad loogu shaqayn kara maaha xaqiiqda marka loo hadlo waa nidaam xiran oo cidna aan fursad siinin soo saas maaha ya annaga waxaa yacni intaan leenahay yaa wax kala daadan maalin walba dadka habka lagu qorayo habka shaqaalaynta habka maaragtay xildhibaanada lagu noqonayo habka golayaasha deegaanka lagu noqonayay dee waxay ahayd wax runtii aan dadku u sinayn waana dhibkeeda leedahay ninka madaxda ana dee mar walba maslaxadda guud ilaalinteedu uu ku khasban yahay oo waxyaabo badan oo khaldan waa aqbalaya isagoo ilaalinaya danta caamka ah maaha aqoon darro inay naga ahayd iyo garasho darro laakiin mar walba marxaladda la joogo ayaan tixgelinayna haddaan heli karno marxaladaha ka qurxoon badan dee waa midda qof walba oo bini aadana uu jeclaan lahaa inuu arko
haddaan ogahay in dad kala dambeeyo oo qorshe leh iyo dowlad heer degmo iyo heer gobol iyo qorshayaasheeda soo dabaysa madaxdaasna maxaa u imaanaysa wax lagu soo heshiiyey protocol buu leeyahay soo ma madaxweynuhu ma wax kaluu leeyahay maamul daadegsan hadduu og yahay ma cid baa ay dhihi lahayd kaa madaxweyne ceel noo qada iyo hadda sida laygu yimaado ceel in la qodo soo dadka deegaankaas inay qorshahooda samaystaan maahayn golaha deegaanka inay isweydiiyaan soo maahayn dowladda dhexana inay fulisaa laga raba marka wax la qaybinayana waxaa la rabaa guddiyada iyo wasaaradaha iyo baarlamaanka sharciga lagu soo doortay inuu nin walba platformkiis qorshaha dowladda in waxaa la rabaa hortabin loo sameeyo oo barnaamijyada laga ansixiyo horta meesha ummaduhu aadeen waa halkaas haddii sida dadka qaarkiis ay jecel yihiin inay xukun jecel yihiin waxaasaan iska haysan lahaa anigoo hadda waxaan abaal baan u sheegan lahaa maxaa abaal ugu sheeganaysaa shaqadaadi waa ninkaan maadaa wax siiyey waa wixii siiyey sida madaxda qaybteed u dhaqmayso waxaa moodaa hadduu degmada wax u qabto inuu leeyahay abaal baan degmada maxaa degmada abaalka ku leedahay tahay shaqaa gudanaysaaye shaqadaada gudo adaa soo doontay ma cid la khasbay baa jirta hadda inuu siyaasadda ka qayb galo inteenna halka joogto ururka ka ha inaan ku biirno ma cid baan ugu khasabtay waxaan rabnaa ummaddeenna inaan u shaqeyno wacyiga siyaasiga ah waxa aan u baahannahay inaan doodaha furno oo la wada hadlo midna waa iniga digaya inaa khaldantaan ha ka baqina isdhaliila khaldama wax sheega ha la wada hadlo xaqiiqadu waxay noqonaysaa faa'iido un bay keenaysaa khasaare ma keenayso gabdhaha waxaan rabaa inaa cod dheer aada la istaagtaan mimbarada oo ka hadashaan haddii mid niila diido xataa idinku samaysta yaa iniga horsaagi kara dooda aan badinno dadkeenna aan la hadalno wacigeenna aan kor u qaadno dadkeenna dad xun ma aha xaqiiqda marka loo hadlo wayna rabaan laakiin waa laga hadalsiinayn soo maaha dowlad diyaar waa inay dadka ka hadalsiisaa maanta inay joogta waa wada hadlaynaa horumarkaan ka shaqaynaynaa ninkii xujo qabana waan la doodaynaa ninna kama hor istaagi karo dadka doonistooda waxa keliya oo dadku ay ku kala saari karaan dadka waa inay kala doortaan kii hadda markaa u arkaan inuu yahay kan ugu habboon inuu dadkaan u shaqeeyo cod in lagu kala saaro wey doorasho mar walba waa dhacaysa iyo doorasho kooban baa dhacaysa soo ma doorashooda magaalooyinkeenna ka dhacda ama golayaasha deegaan ka dhacda ama baarlamaan ka dhacda waxaa wax dooranaya cid aan isaga la soo dooran intaas way horta wax la saxa inaad fahamtaan golayaal degaan waa jireen soo maaha waxbay dooranayeen laakiin iyaga lama soo doorana waa la magacaabay meesha loo socdo baarlamaanku waxa weye waxbuu dooranayay laakiin isaga lama doorana waa lasoo magacaabay inta la rabo inay isbedesho waxa weeye oo ay quruxda keento dad la soo doortay oo xambaarsan aaraa iyo afkaar iyo qorshayaal iyo dano dad ay mas-uul ka yihiin inay dadka wax dooranaya noqdaan wey markay taas dhacaysana waxaa yaraanaya khaladaadka ka imaan kara dadka la doortay hadday ka timaado qofka khaladna isla xisaabtan baa imaanaya waa laba faktor oo muhiim ah oo dowladnimadeenna iyo daldhiskeenna aasaas u ah marka kaa haddaynu nahay waxaan rabnaa inaan u diyaar garowno horumarkaa bulshada hoggaankeeda inaan noqonno waxaan diyaar u nahay ururada kaleeto inaan saaxada iyo degmooyinka inaan kula tartanno waxaan rabnaa degmooyinku inay ka soo baxaan golayaal degaan oo danta dadka ka shaqayn doono ilaahay idankiis shaki ku iigama jiro degmooyinka ugu badan waynu ku guulaysan doonaa kaah waxay noqon doontaa hoggaanka ururada siyaasiga ee maanta jira kuwa kalena waxaan u rajaynaynaa khayr maadaama tartan naga dhexeeyo colaadi nagama dhexayso waxaan u kala tartamaynaa annagaa inaga fiican iyo idinkaa inaga fiican annaga waa hubnaa inaan isfiicanno dalkaan daacad u nahay hadday iyagu tabar hayaanna tartankaan ku kala baxaynaa laakiin dowladdaan nahay kuma dulmayno waxaa daliil u ah saddexda degmoo la doortay habacsanaantii annaga nagu timid baa degmooyinka noolaga qaaday soo maaha ugama ciil qabno kuwa dambe diyaar garowgaan kordhinaynaa isbeddelka xagga hoggaankaan dib u fiirinaynaa hadday shalay aan mashquulsanayn oo doorashooyin kale ku mashquulsanayn maanta tan keliyaan ka shaqaynaynaa duruufteenna waa isku ceceshanaynaa dalkeennana waa ka wada shaqaynaynaa danihiisana isku mid baan ka noqonaynaa waa wada hadlaynaa haddii la kala maqan yahay waxaa laga yaabaa aragtiyo kala duwan in maaragtay ay wareegaan waxaan rabaa qof kasta oo dhallinyaraha ururka kaah ka tirsan inuu noqdo safiir kaah meesha uu joogo
laba shay inuu ka shaqeeyo fidinta barnaamijka xisbiyada badan oo ah mashruuc dalka Soomaaliya iyo Puntland ku cusub oo si gaar ah rabo inuu ka shaqeeyo mashruuca labaad waxa weeye inuu fikirka iyo aragtida iyo qorshayaasha ururka ka uu sharaxo waxaan ka codsanayaa mas'uuliyiinta golaha dhexe iyo heer gobol iyo heer degmo iyo kulligeenba inaan dib u qorno oo u sharaxno mabaadiida ururka iyo siyaasaddiisa oo dadka u akhrino si qofku wuxuu sheegayo u noqoto wax sax ah oo mabaadi sax ah oo rabo inuu ku shaqeeyo hadhow lagu xisaabtamo tii horeeto hadda waxay ahayd tijaabo tani waa ciyaartii rasmiga ahayd marka waxay u baahan tahay diyaar garowkii hore ka tirsan waxaan inii rajaynayaa horumar kaaguul horumar baan inii rajaynayaa dhammaanteenna waxaan rajaynaynaa inaan noqono kuwii taariikhdu ay xusto oo isbeddelka Puntland hormuudka u noqdo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaah